السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا إيجا حيران ماما منى عافماد إيو قروح دمانتي وإذن سلامة يا ما أنت شاكان إذين وضاء آد وقصلي سبحان الله إن وحان آد ما أنت آن وقصلي إن عوانكي واركتان عجلكن وكدويني هاي عجلده هوري aan idin la wadaagi jiray ma sha Allah inkastoo oo aan soo qaadanin image-keeda ayaamahan waa aragteen walaalahay social media gabdhihii Soomaaliyeed iyo mataqaanaa xaalka maanta ee lagu sugan yahay subhanallah waxa aad iga qoslisay oo aan rabaa inaan idin la wadaago anoo sawirkeeda soo qaadanaynin iyo cajalkeeda midnaba gabar yar oo Soomaaliyeed oo tiri waxaan la talinayaa dumarka Soomaaliyeed ma sha Allah horta eeda ama habar yar Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha joogtaba Allah ku sugo ayaan ku leeyahay gabadhan yar waxay tiri dumarow inta ama seeri lahaydeen guurso nin naag qaba si aadan u masayrin oo waxaa noqotaa midda saddexaad ama midda afaraad arintaas oo aad iyo aad mataqaanaa aan ugu qoslay gabadhaas yar meesha ay taagan tahay iyo gabdhaha la midka ah ayaan maanta rabaa inaan mataqaanaa aan idin la wadaago iyo bal walaalaha janaalka ku xiran sida ay idin la tahay kulay gabadhaas iyo gabdhaha la mid aba waxaan u diri lahaa ma sha Allah tabaarakallah value-gaaga ayaa ka badan in aad ku fikirto hadhowti ninkan naagu guursan doonaa استغفر الله واتوب اليه marka qiimahaaga ayaa gabadha Soomaaliyeed ka badan inaa ku fikirto ninkan hadhowna uu guursan doonaaye intii adiga hadhowti masayri lahayd oo aad mataqaanaa aad noqon lahayd naagtii lala guursaday noqo naagtii wax la guursatay gabadhan fikirkaas ayay mataqaanaa ay meesha ay ku soo keentay waana arin ay mataqaanaa ay aragtay ama dadka qaar ay la qabaan marka walaalahay Soomaaliyeed ma sha Allah tabaarakallah rag iyo dumarba xaqiiqdii kulay aniga gabdhaha yaryar waxaan dhihi lahaa noloshaada kor u qaad qiimahaaga kor u qaad kamaan gabar Soomaaliyeed ayaa tahay guurka iyo xalaalnimadiisa iyo afara u banaan iyo shana u banaan iyo maxaa la dhahaa saddexa u banaan iyo laba u banaan iyo taas idin kala ma hadlayo laakiin himada gabadha Soomaaliyeed ay leedahay inay kor u qaado aad iyo aad bay mataqaanaa ay u qurux badan tahay waxa dhiseerfi garaysaa noloshaada wax fiican ayaa dhiseerfi garaysaa noloshaada deganaansho ayaa mataqaanaa aad noloshaada wax aad iyo aad u qiimo badan ayaad goysaa gabaryahay Soomaaliyeed ma tihid mataqaanaa wax iska socda ama wax raqiis ma tihid waxa tahay qaali ayaa tahay gabar walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u diro ninka aad guursanaysid adiga ayaa ka qaalisan gabadha ayaa ka qaalisan gabadha ayaa waxay ka qaalisan tahay 100 jeer ninka ay guursanaysa marka ha u guursanin naagu qabaa ha u guursanin naag ma qabo laakiin waxa u guursataa qofka qiimaha uu leeyahay iyo noloshaada adigoo qiimeynaya intaas ayaan rabaa mataqaanaa inaan dhaho laakiin gabadha Soomaaliyeed ee muslimada ah qiimahaaga aad iyo aad iyo aad iyo aad ayuu u badan yahay aad iyo aad iyo aad iyo aad ayuu u sareeyaa marka qiimahaaga adiga hoos ha u dhigin adiga gabar Soomaaliyeed ay qiimahaaga hoos ha u dhigin inta badan kama hadlo maxaa la yiraahdaa family problems kama hadlo waxyaabaha mataqaanaa nin iyo naag iyo guur iyo howlahaas inta badan kama hadlo laakiin gabadhan yar anigoo aad u ixtiraamaya wajigeeda iyo maxaa la dhahaa iyo facekeeda kulli walaalo badan oo social media aad iyo aad oo la socda ayaa jira ma aan soo qaadanin actually ajalkeeda oo ma aan soo saaranin meesha laakiin in badan oo idin kamid ah waxa laga yaabaa inaa gabadhaas yar aad la kulanteen marka gabadhaas iyo gabdhaha la midka ah waxaan message-kan u diray waxay tahay habar yar aad iyo aad ayaa waxa u tahay qaali adiga ayaa
ninkaba ka qaalisan maasha allah waayo adiga tomorrow waxaa noqonaysaa hooyo waxaa noqonaysaa bulshada meesha ugu qaalisan ma aha nimanka inaan qiimo ridaya marka aan leeyahay gabadha yar laakiin gabadha yar ayaa boqolkiiba boqol mataqaanaa qiimaheedu uu yahay maasha allah tabaaraka allah marka hor u soco qiimahaaga kor u qaad noloshaada kor u qaad cilmigaaga kor u qaad diintaada kor u qaad ilaahay subxaanahu watacaalana meel sare ayuu ku saaray marka ha ku fakerin qaybaha noocaas oo kaleeta biidnillahi baari adiga iyo gabdhaha idin la midka aba walaalahay aad iyo aadaan idin salaamaya maasha allah tabaaraka allah fakarkiina aa ka qabtaan arrintaana commentiga insha allah biidnillahi alkariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu